kulan ay ka soo qayb galeen dhammaan suxufiyiinta gobolka Cayn oo soo qaban qaabiyay maamulka idaacadda Daljir xarunteeda magaalada Buuhoodle ayaa maanta lagu qabtay hoolka xarunta idaacadda Daljir ee magaalada Buuhoodle kulankan oo ahaa mid baroor diiqa ayaa tacsiil loogu diray dhammaan ummadda Soomaaliyeed bahda warbaahinta iyo eheladii uu ka geeriyooday Allah u naxariistay wariye Farxaan James Cabdille oo kamid ah howlwadeennada Daljir kaasoo xalay lagu dilay magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug agaasimaha idaacadda Daljir xarunteeda magaalada Buuhoodle Khadar Cawl Ismaaciil ayaa ugu horeyn halkaasi ka hadlay waxaanu taasi tiiraanyo la gaarsiiyay dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo asxaabtii ay wada shaqayn jireen marxuum Farxaan James Cabdille walaalayaal halkani waxaanu isugu nimi annagoo ah dhammaanba ama inta badan suxufiyiinta ka howlgala gobolka Cayn gaar ahaan magaalada madaxda gobolka ee Buuhoodle inaanu halkani ku muujino dareenkayaga ku aadan iyo murugada aan ka murugaysanahay dil arxan darro ah oo xalayto lagula kacay mid kamid ah wariyaasha Soomaaliyeed gaar ahaan wariyaasha idaacadda Daljir xarunteeda Gaalkacyo Allah u naxariistay Farxaan James Cabdille oo xalayto ay kooxo hubaysan oo aan la aqoonin haybtooda ay ku dileen magaalada Gaalkacyo halka lagu magacaabo Jira Kuway waxaan leenahay dilkaasi wuxuu ahaa dil axmaqnimo ah oo arxan darro ah ayna fuliyeen kooxo manaxayaal ah inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ayaan leenahay dhammaan waxaan tacsi gaarsiinaynaa suxufiyiinta Soomaaliyeed meel kasto ay joogaanba oo uu ka baxay haliyay saxaafadeed oo aad loo jeclaa isla markaana aad looga qadarin jiray deegaanka uu ka howlgali jiray gaar ahaan magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug si gaar ah waxaan ugu tacsiyanayaa dhammaan shaqaalaha iyo howlwadeennada idaacadda baaxadda weyn ee Daljir ee uu ka howlgali jiray oo aan ka mid nahay waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waana inaga wada dhintay samir iyo iimaan Allah inaga siiyo tacsi gaarana waxaan si gaarsiinayaa qoyskii uu ka geeriyooday Farxaan James aabihii iyo hooyadii xaaskiisii iyo caruurtiisii walaaladii iyo dhammaan cidii ay ehelka ahaayeen asxaabtiisii iyo cidii taqaanay waxaan leeyahay waa inaga wada dhintay walaalayaal dhammaanteenba si wada jira ilaahay samir iyo iimaan hayno ka siiyo Farxaan James Cabdille waxaa dishay gacan ka xaq daran waxaa fuliyay dilkiisa kooxo manaxayaal ah waxaa ka dambeeyay sida aan anagu aragno dad nacib horumarka ummadda Soomaaliyeed iyo nabadgelyada jecelna inay bulshada indhaha ka ridaan Zakariya Maxamed Cumar iyo Cali Dhagjar oo kamid ah wariyaashii kulanka ka soo qayb galay ayaa ka tacsiyaday geerida naxdinta lahayd ee Allah u naxariistay wariye Farxaan James Cabdille isla marhaantan aanu baroordiiq ama tacsi tiiraanyo u dirno dhammaan xarumaha Daljir oo dhan oo ay ugu horeeyaan mas'uuliyiinta sarsare idaacadda Daljir iyo waliba ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee Nusooj oo aanu iyaguna tacsiidan la qaybsanayno intooda ka xun waxaanu sidoo kale u mahad celinaynaa wariyaashan maanta kulanka ka qayb galay kaasoo ugu baroordiiqay wariye Farxaan James Cabdille wariyaha qaaliga ah oo ahaa wariye si wacan looga yaqaanay Daljir xarunta ay ku leedahay Gaalkacyo dadka wariyaasha dilaya dadka nacab horumarka iyo inay wariyaasha soo tabiyaan waxa deegaankood ka dhacaya ama xaqiiqada ka dhacaya waxaan ugu baaqnaa runtii dadkaas wariyaasha maalinka dilaya inta Ilaahay ka cabstaan dilka ka daayo wariyaasha dilaysan mid kale waxaan ugu baaqay maamulka gobolka Mudug oo inta dhawaale magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug ku soo badanaysay dilalka wariyaasha Soomaaliyeed in maamulku arrinta wax ka qabto maaha markii koobaad maaha markii labaad si saxafiyiinta hor sheegeen ee wariyaasha loo Gaalkacyo waxaanu ka codsanaa hadanahay bahda saxaafadda gobolka Cayn maamulka gobolka Mudug ilaa kan degmada ilaa booliska ilaa lamaha maamulka gobolka Mudug inay gacanta ku soo dhigaan cidii ka dambeysay dilalkan istaba jooga Gaalkacyo loo geysanayo Khadar Cawl Ismaaciil agaasimaha raadiyo Daljir xaruntiisa Buuhoodle ayaa ku tilmaamay dilka suxufiyiinta loo geysanayo kuwa lagu doonayo in lagu wiiqo howlaha horumarka ee warbaahintu u hayso ummadda Soomaaliyeed waxaanu tilmaamay in aysan wax saameyn ku yeelan doonin howlahooda shaqo falalkan uu ku tilmaamay wuxuushnimada ee loo geysanayo bahweynta saxaafadda dadkan dabcan dilalka u geysanaya suxufiyiinta waa dad iyagu doonaya inay suxufiyiinta cabsi galiyaan una caga jugleeyaan isla markaana ay waxna dilaan waxna ay ku khasbaan inay shaqada ka tagaan hase ahaatee anigoo ku hadlaya dabcan saxaafadda gobolka Cayn midda Daljir oo aan ka tirsanahay isla markaana ahay maamulaheeda xarunta gobolka Cayn ee Daljir ay ku leedahay waxaan leenahay waxna cabsi gelinaya maaha dilalka ay dadkaasi u geysanayaan suxufiyiinta Soomaaliyeed waxna cabsi gelinaya maaha waxaanu shaqadeeda u joojinayna maaha shaqadeedana waa sii wadaynaa waxay noogu caga jugleen karaan ama nagu xooqin karaan maaha suxufi la dilo iyo mid la dhaawaco iyo mid loo soo hanjabo
waxaan leenahayna ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan meel laga soo wada jeesto suxufiyiinta Soomaaliyeedna waxaan leenahay dilalka la idin geysanaya iyo tacadiyada la idin kala kacaya caynkaasi oo kala yeesan noqonin wax cabsi geliya oo shaqadiina saameyn ku yeesha shaqadeeda waa sii wadi doonaa weligeena waa wadana inta aanu noolahay hadeerna bulshadana danu haynaa waan leenahay bulshadana waa si shaqeynana inta aanu noolahay qof dhagar qaba ah oo maxaan ku dhahay manaxa ahayna dil uu geystay suxufi Soomaaliyeed ma aha mid shaqadeeda ku dhibi doona assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulankan maanta isugu yimaadeen dhammaan bahda saxaafadda gobolka Cayn ayaa ahaa mid si weyn loogu cambaareeyay dilalka suxufiyiinta iyo guud ahaanba tacadiyada ka dhanka ah bahda warbaahinta waxaana tacsi loogu diray eheladii iyo asxaabtii wariye Farxaan James Cabdille oo xalay lagu dilay magaalada Gaalkacyo Maliyuun Axmed Xasan Soomaali TV Buuhoodle